xaflad ballaaran oo lagu taageerayay go'aankii xisbiyada mucaaradka isbahaysiga ee Soomaaliland wadani iyo uxud ay ka qaateen maalintii 13 November ee ay ku sheegeen inaanay u aqoonsanayn xukuumad sharciya wixii ka dambeeyay maalintaasi xukuumadda uu hogaamiyo Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena lagu soo dhaweynayay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo baryahanba ku sugnaa waddanka UK oo ka mid yahay xildhibaan maxamed abiib xildhibaan axmed khaliif jaamac saalax xildhibaan qaasin aadan saleban iyo waliba xogayaha golaha wakiilada ee Soomaaliland cabdirasaaq siciid ayaanle ayaa lagu qabtay magaalada London xafladan oo dadkii ka hadlay ay u badnaayeen madaxda asxaabta mucaaradka taageerayaashooda iyo waliba aqoon-yahan wax garad ka soo jeeda Soomaaliland oo ku sugan waddankan UK ayaa dhammaantood waxay ka dayriyeen xaaladda Soomaaliland ay haatan ku sugan tahay waxay ku baaqeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland waa sida hadalka u dhigeen inuu ku soo noqdo sharciyada uuna u turo dadka iyo dalka sidoo kalena waxay ku eedeeyeen taliyaha booliiska Soomaaliland maxamed aadan saqadhi dabagale inuu ka baxay dhexdhexaadnimadii booliiska oo uu isagu raacay dhinaca xukuumadda si buuxda hadaladoodiina waxaa ka mid ah sidatan waxaynu taageersanay go'aankii ay gaareen labada xisbi ee ay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay kaga dhamaaday xilligu 13 November ee ay kala noqdeen kalsoonidii inaynu taageerno nuxurka ujeedadeenu waa intaa markaan ku hadlo afka ucud waxaan taageersanahay waxaan ku celinayaa markasta waxaan taageersanahay go'aankii ay qaateen oo ahaa go'aan aad u qiimo badan oo xisbiyadu gaareen waxaan leeyahay labada gudoomiyaba waxaan leeyahay aad iyo musharaxa xisbiga wadani cabdiraxmaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqo fiican baad qabateen waxaan leeyahay waan idin taageersanahay Soomaaliland oo dhan baa idin taageersanahay go'aankii xisbiyada isbahaysiga ka qaateen 13 November aanu taageerayno ayidayno xoojinayno go'aankaas wuxuu ahaa go'aankii ugu wanaagsanaa abid dhaca waxay soo afjartay kurbadii iyo kadeedkii haysta 5 sano ugu dambeysay ee Soomaaliland meel wacan baa la dhigay arrinka annaguna waanu taageersanahay waanaanu ku faraxsanahay muusana waxaanu leenahay muusow 5 sanadood ee lagu doortay way dhamaatay hargeysa marka airportka laga daga waa la dawarsanaya baahi iyo baab abaa ka jira xanuun baa jira xanuunkaana waxa keenay dulmiga abaar baa jirta abaarta waxa keenay dulmiga hadii aan dulmi jirin roobku inagama qaadeen xanuunna ma yimaadeen waxaan idin leeyahay reer Soomaaliland waan idin la dardaarmaya waxaan idin leeyahay taladu waa maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo waxaad oran doontaan hadhow maxaa la lahaa hadalkaygana waa dumarsan doontaan xaq darrada iska qabta waxaan leeyahay ciidamada qaranka ee loo adeegsanayo shacabkooda ee laynaya ee xidhxidhaya war halkan baaba la idinku yiri mushaharka la idin korniya guriga la idin carruurta jaamacada la idinka bixinayaa ma maskaxdaad la idin oo waad falantihiin war shacabkiina dagaalka ka daayay siyaasaddu muufa maaha waxa muuqata in maanta qaarkeen raggii hogaamada inoo hayay ee xukunka inoo hayay baashii muufo u maleeyeen ama ay muufo ka dhigteen haddii aysan kursiga sii joogin ay u maleeyaan inaysan noolaan karaynin ayaa ninkan madaxweynuhu runtiina waa xariifa wuxuu xariif ku yahay waa PhD holder Harvard ah oo yaqaana sida dadka loo kala qaybiyo ninka mutacallinsan oo waddanka jooga oo qaybi oo xukunta horta kaga mutacallinsan horta ma jiro waxa dhacday inuu nimankii u yeero oo ku yiraahdo waryaarahan soo idkama dhamaan sanad iyo waxbaad iyo laba iyo waxbaad baritiin haddaan 5 idin dhiiba ka warramo oo aduna maxaa doonaysaa ana labaan doonayaa madaxweynuhu markii wareysay madaxweyne Soomaaliland 2 sano loo kordhiyo tooso intii hore tafaariiq bay ahaan jirto wala yaryareen jir miis baa la iskugu yimi dabeetana nimankii shan baa loo sheegay ma maqli jirteen waxaan af Ingiriisiga lagu yiraahdo offer you cannot refuse 5 sano oo aadan diidi kareynin horta 5 sano saasay ku timi horta maantadaynu joogno doorashada wax lagu galo oo xeer ah oo yaala ma jirto taawrada markhaatigu fadhiyo ka kac ma jirto waxa loo baahan yahay in la helo
xeerkii lagu geli lahaa maadaama 23 December ay dhammaanayso liisamadii ay haysteen xisbiyada qaranku laakiin mid baan idin sheegayaa waxay leeyihiin wax la yiraahdo saddex xisbi qaran legal personality shakhsiyad qaanuun bay leeyihiin ilaa la helo xisbiyo bedela ilaa la helo iyaga xisbiya ahaanaya Somaliland ninka la colka ninka duminaya waa ninka doorasho diida weey Somaliland ninka la colka duminaya waa ninka inta wada joogta kala kaxaynaya weey Somaliland ninka la col duminaya waa ninka dadka gaajaysan wuxuuga ka dharga weey waa ninka dadka haraadan isagu biyo ka sameeysta weey fariinta ugu dambaysa waxa weeyaan nin madaxweyne u diyaara oo anigu aan diyaar garoobay anuu Cabdiraxmaan Cirrun Barak cid kale rubaan idin sheegaya qofku waa inuu diyaar garoobo Maxamed Abi maanta haddaan istaaga maanta I'm not ready wax badan baa ii dhiman inaan dadkan cabinet ka dhigi lahaa ka fikiraa ii dhiman waxa ii dhiman inaan isku habeeyo dadkii kursiga gaarsiin lahaa inaan isku habeeyo ii dhiman caawa cid diyaara Cabdiraxmaan baa jira madaxweyne Muuse Bixira wax leey isaga un baa ka tirsanaya hadii la yiraahdo madaxweynaha war xilligiisii dhamaaday maxaa looga soo gudbayaa waxa looga gudbayaa waa maxay doorasho maxaynu leenahay haddaynu qurba jooganahay doorasho codkiina ma maqlaayee doorasho codkiina ma maqlaayee doorasho doorashuun baa loo taagan yahay cid kale ama go'aan kale oo haba yaraatee burin kara ma jiro doorasho madaxweyneenu taagannahay أحمد عول إسماعيل أحمد لندن ساب تي في لندن